ودد halkan ku noolaa si nabadgelyo ugu noolaa dadkooda la nool dadka reer Soomaaliland la noolaa si sharaf leh wala noolaa imkan si sharaf leh uga noqonaya anana waa si sagooteena waa si nabadgelyeena wadankoodii ayay go'aansadeen wadad iskoodu noqonaya ma aha dad la raafay ma aha dad la khasbay wadad iyagu iskoodu noqonaya waxaana hawsha soo fuudeysay hay'adda IOM iyo xafiiska dawladda Itoobiya ku leedahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa annaguna maadaama hay'adaha ku shaqada lahaanu nahay saasaanu saaka ku sii nabadgelyeena xilkoodii iyo mas'uuliyadoodina aanu ku wareejinay soo raafino annagu aan soo qabqaban Soomaaliland muddo ku noolaa si nabadgelyaana ku noolaa qaarkood business ku haysteen qaarkood shaqaysanayeen imikana jeclaysteen in dalkooda si nabadgelyo ugu noqdaan taas ay annaga iyo hay'adaha iyo dibadejinta waxay iska kaashanay si ay u noqon lahayn dawladda Itoobiya safaaradeeda waxba aanu goobjoog u nahay marka sidaas ay saaka ku ambaxayaan faleedkay raacayaan dadka jooga Itoobiyaanka ama hadda ganaada ama socotaado waxaanu jecelahay in si soo diiwaan galiyaan si wanaagsan si dalkooda loogu celiyo maalinta doono waa la celinaya waxaanay ka baxayaan airport-ka cigaal diyaaradda la sareemaa dad gawaadhi lagu rarayo si official bay u baxayaan iyagoo nabadgelyo dalkooda way tagayaan imikana waa kuwaas oo habi iyaga soo diiwaan galiyay sidaas aan ku garab qabanay raalina kaga nahay dawladda anagu wixii dambana waxaanu jecelahay iyagoo sharaf leh in soo diiwaan galiyay si sharaf ah dalkooda qabanayaan u noqdaan